waxaanu doonaynaa sidaa imika idinkuba dalka taladiisii 10 sanadood u hayseen oo waliba dee gafaf badanna idinka muuqdaan in dadka kalena ay dalkan taladiisa u qabtaan sidaa darteed waa in ururadii la furaa ururadii waxa weeyaan waxa ka hadhay furitaankooda muddo kooban halkan waxaynu ku haynaa xeerkii xeer lambar 14 ee ahaa kii ururada iyo xisbiyada lagu furayay xeerkaasi waa taa qodobkiisa afraad wuxuu sheegayaa liisankii saddexda xisbi heleen December 2012 inuu dhacayo December 2022 xilligaas uu ka dhacaya hadduu dhacana waxa weeye xisbiyadaasi waa baatil ma joogayaan waa sharci ma hayaan ay ku fadhiyaan marka sidaa darteed imika 2 sanadood iyo 2 bilood baynu inta muddada ayay naga xiga intaasaan u sii diraynaa xisbigan imika Berkshire iyo dalka xukunkiisa ayaa in ay u diyaar garoobaan in ururadii iyo xisbiyadii la furo oo dadku ay xaq u leeyihiin oo dadku ay tahay iyada intaan imika joogto ee 19 sano jooga dadaan hayn inay yimaadaan oo taladii dalka ay qabtaan oo talada dalka xarigan iyo seetadan lagu xidhay laga furo waa saddex xisbi baa imika jira saddexda xisbi inay istaamin baad moodaa oo muxuu ahaa wixii waajib ku ahaa ayna ka soo baxayn waxaan oran lahaa doorashadu ha dhacdo dhaxso ha dhacdo aynu bedelo sidan wax u socdaan marka waxa weeye nidaamkan aynu qaadanay ee siyaasigiina meel alla meel adduunyada kaga qoran yahay meel alla meel adduunyada kaga qoran yahay ama maana arag mana garanayo in charterkan bini'aadanimada ee la yiraahdo human rights charterka qodobkiisa 22aad iyo kiisa 22aad ba wax sheegayaan nin walba muwaadini inuu xaq u leeyahay inuu nidaamka siyaasiga ee dhulkiisa ka jira ka qayb galo mas'uuliyadna ka qaadi karo waxna dooran karo lana dooran karo saddex xisbi Soomaaliland kumay gobolamin oo isku dan ah oo isku ujeeda oo mid walba marba kii kursiga u sareeyaa fuusha uu leeyahay ummadanina waxa weeye inay taa ka korto inay xaq leeyihiin waajibna saaran yahay waajibkana ay gudato xuquuqdeedana ay raadsato sharcigii meesha yaalay cid raacday ma jirto intaa gaaban saddexda nin kulmiye iyo ucid iyo wadani oo 8 sano jiray iyo soo bixitaankii uu soo baxay ucid iyo hadii kulmiye iyo udubo baabayo 18 sano la marayo talaabada nabadgelyadu ay dadku keeneen mooyee wax maamulkeeni ma jiro oo horumar ah mid dhaqaale mid caafimaad mid bulshooda caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo hadii beedinkeeda leeyay lama arag xal la muuqdaanay dalkan mugdiga geliyay horumarkiisii waxa geliyay koox yar oo ayagu xidhato noqday oo siyaasadda xidhay kooxda yar ujeeddo gaar ah bay leeyihiin oo nin kasta wuxuu doonayaa inuu gurigiisa dhiso gurigii weynaana wuu ilaaway guriga weyni waa ka gurigan yar uu ka dhismay aad doonaysaa inaad abaabushaan ee aad wanaajisaan Soomaaliland waa guriga weyna guriga weyn kolka la dhiso ee la hagaajiyo ee laga shaqeeyo oo la hormariyo yaa kaagan yare adigu leedahay 5 qol ama 4 qol aad doonaysid inuu horumaro kaasoo ka dhismaya